Eugenie Bouchard waa mid ka mid ah kuwa ugu qorxan uguna caansan dumarka ciyaara tenniska. guud ahaan waxaa isbedelay nolosheeda markii ay si la yaab leh sharad u gashay ka hor ciyaar final ahayd, gaar ahaan ciyaarta rugby-ga ee laga ciyaaro Mareykanka, taasoo u dhaxaysay kooxaha Atlanta iyo Patriot. Eugenie ayaa ciyaarta intaysan soo gelin waxay Twitterkeeda ku soo qortay, "Waan ogahay in Atlanta ay guuleysan doonto." Kalsoonida ay ku qabtay kooxda ay taageerto ee Atlanta waxaa ka faa'iideystay wiil ka mid ah dadka ku xiran Twitterkeeda, kaasoo lagu magacaabo John Corky. waxaana uu soo qoray in haddii laga guuleysto Atlanta oo ay Patriot guuleysato ay outing la aadi doonto ama hal habeen ay magaalada wada aadi doonaan. iyadoo ka labalabeen ayay Eugenie aqbashay sharadka, iyadoo aaminsan in sharadka ay ku guuleysan doonto. dhammaan dadka ku xiran Twitterkeeda oo la socday sharadka ay gashay ayaa si aad ah isha ugu hayay ciyaarta kama dambaysta ee Atlanta iyo Patriot, iyagoona sugayay cidda guuleysata. lama filaanku wuxuu noqday in kooxda Patriot ay guuleysatay, lagana guuleystay kooxdii ay taageerada u ahayd kuna kalsoonayd Eugenie ee Atlanta. halkaas ayay ka bilaabatay in dhammaan warbaahinta Mareykanka ay si aad ah u qaada dhigaan sharadka laacibadan tenniska caanka ku ah. cadaadis badan oo ay saxaafadda iyo taageerayaasha ugu yimid, Eugenie waxay ku qasbanaatay inay balankii iyo sharadkii oofiso. inkastoo aysan aqoon u lahayn xitaa qaabka uu u yaal John, walaac badanna ay ka qabtay la kulankiisa, waa ay la xiriirtay waxayna u qabatay balan iyo halkii ay ku kulmi lahaayeen. John oo deganaa gobol kale oo ka fog kan ay deganayd Eugenie, haddana iyadaa kafaalo qaaday qarashka safarkiisa iyo hoteelka uu degi lahaa. markii ay kulmeen, John waxa uu Eugenie siiyey hadiyad fudud, kadibna labadooda ayaa casho ku qaatay meel degan. labadooda waxay bilaabeen jawi haasaawe aan caadi ahayn, taasoo soo jiidatay macaamiisha ku xiran baraha bulshada Eugenie. sidoo kale asxaabteeda ayaa Twitterka ku soo weydiiyey sida uu ahaa la kulankeeda John. Eugenie waxay sheegtay in ay si aad ah ula dhacday la kulanka John, waqti fiicanna ay la qaadatay. sidoo kale waxay ka dhawaajisay in ay jeclaan lahayd in ay kulmaan marar kale. ficil ahaanna way dhacday oo John iyo Eugenie dhowr mar ayay ka soo wada muuqdeen xaflado iyo munaasabado kala duwan. sidoo kale dhowr mar ay sawiradiisa iyagoo wada jira ku faafisay baraheeda bulshada, iyagoo mararka qaar ahaa kuwa laga dareemayay in ay isku dheeraadeen oo ay ka gudbeen oofinta balanta sharadka. si lama filaan ah, sharadkeeda ayaa isugu bedelay qiso jaceyl oo ay baahiyeen warbaahinta Mareykanka iyo tan caalamka. sidoo kale waxaa lagu wadaa in dhowaan sheekadooda laga sameeyo filim. nala wadaag fikirkaada, ma aaminsan tahay in xiriirka ka bilowda baraha bulshada uu sii socdo islamarkaasna guuleysto? aragtidiina noogu soo hagaajiya qaybta commentiga. sidoo kale haddii aad ka heshay muuqaalkan like saar, lana sii wadaag asxaabtaada kale. mahadsanid.